السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida lagu sheegay mowqica Bold Sky ee ka faallooda arrimaha caafimaadka in la isku daro malab iyo qolofal marna la wada isticmaalo waxay dawo ka yihiin hargabka qufaca joogtada ah waxa kale oo ay dawo ka yihiin xanuunada ku dhaca kaadi haysta isla markaana waxay dawo ka yihiin igfashanka ku dhaca meelaha kala goysida ah ee jidhka iyo xataa ciladaha ku yimaada habsami u shaqaynta wareegga dhiigga ee jidhka sidoo kalena isku daritaanka labadan shay oo mar la wada isticmaalaa waxay jidhka kala dagaalamaan bakteeriyada iyo fayruska isla markaana waxay ilaaliyaan caafimaad qabka wadnaha waxaanay wanaajiyaan halbowlayaasha dhiigga ee wadnaha isla markaana waxay ka hortagaan igfashanka ku dhaca habka neefsashada ee sanka waxaana yareeyaan xadna u yeelaan kor u kaca kolestaroolka waxaana ilaa xad wanaajiyaan nidaamka dheefshiidka haddaba waxaad isugu dari kartaa labadan shay qaabab kala duwan kolba kii adigu aad awoodo qaababkaas oo ay ka mid yihiin inaad malqaacad malaba iyo wax yaro qolofala oo shiidan isku darto kadibna aad ku sii darto koob shaah oo bigaysa sidaasna aad ku cabto iyo inaad malqaacad yaro qolofala oo shiidan aad ku darto koob ay ku jiraan biyo diirani kadibna aad ku sii darto laba malqaacadood oo malaba sidaasna aad ku cabto iyo inaad malabka intii aad ka cabbi karto aad dusha kaga darto wax yaro qolofala oo shiidan isla markaana aad cabto maalintii 2 jeer ilaahayna subxaanahu wa tacaala sida saxda ah hayna waafajiyo aad baad u mahadsantihiin